السلام عليكم maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno cashir ku saabsan cashiradeenii ayaan rabnaa inaan sii wadno waxaan ka hadli doonaa marka introduction ku saabsan pituitary gland okay ama pituitary gland ayaan ka hadlaynaa so pituitary gland marka ka hadlayna marka magac kale ayaa loo yaqaanaa pituitary gland magac kale ayaa loo yaqaanaa maxaa loo yaqaanaa pituitary gland magac kale ee loo yaqaano maxaa waaye waxaa loo yaqaanaa hypophysis okay hypophysis haddaan aragno ama pituitary gland haddaan aragno waa isku mid marka pituitary gland maxaa kaloo loo yaqaanaa waxaa loo yaqaanaa hypophysis okay pituitary gland asiga waxaa loo qeybiyaa laba qeybood ayaa loo qeybiyaa waxaa loo qeybiyaa anterior pituitary gland iyo waxaa loo qeybiyaa posterior pituitary gland okay so anterior pituitary gland magac kale ayaa loo yaqaanaa waxaa loo yaqaanaa adenohypophysis okay adenohypophysis ayaa loo yaqaanaa halka loo yaqaano posterior pituitary gland neurohypophysis okay neurohypophysis ayaa loo yaqaanaa marka anterior pituitary gland haddaa maqashid anterior pituitary gland iyo sidoo kale adenohypophysis waa isku mid neurohypophysis iyo posterior pituitary gland haddaa maqashidna waa isku mid okay anterior pituitary gland markaa ka hadlayna marka hadda umaana marka developmentigooda okay developmentigooda ayaan ka hadlaynaa xaggee ka imaadeen asalkooda waxaa la yidhahdaa pituitary gland anterior pituitary gland wuxuu ka yimaadaa ectoderm okay ectoderm ayuu ka yimaadaa halka kan uu ka yimaado neuroectoderm marka maxaa micnihiisa waxaa waaye kan wuxuu ka yimaadaa meel la yidhahdo epithelial pharyngeal epithelium okay kor ayuu soo aadaa pharyngeal epithelium ayuu ka yimaadaa kor ayuu soo aadaa marka laakiin kan wuxuu ka yimaadaa xagga kore ayuu ka imaadaa hoos ayuu soo aadaa okay marka wuxuu ka yimaadaa qaasta waxaa la yidhahdaa wuxuu ka yimaadaa dens flonka ayuu ka yimaadaa la yidhahdaa densi flon haddaa soo gaabino dens flon ayuu ka yimaadaa la yidhahdaa so marka waxaa ogaaneynaa marka kan waxaa waaye redkis buj ayuu sameyn doonaa then kor ayuu imaan doonaa so maxaa la yidhahdaa anterior pituitary gland waxaa waaye from down ayuu ku imaan doonaa to high ayuu aadi doonaa kaasna from high ayuu ku imaan doonaa oo hypothalamuska ayuu ku imaan doonaa iyo dhankaas kadibna down ayuu soo aadi doonaa pituitary gland ayuu suubi doonaan okay marka developmentigooda waaye okay markii imbaryaha ayaa ka hadloonaa development of baryahooda okay hadda waxaa fiirinaynaa marka xiriirka ka dhexeeyo hypothalamuska iyo pituitary gland because of waa daris ayaga intaan gelin ka hor xiriirka u dhexeeya hypothalamuska iyo pituitary gland waxaa loo yaqaanaa waxaa jira waxa la yidhaha pituitary stalk okay pituitary stalk waxaa waaye waa meesha u dhexeyso hypothalamuska iyo stalkiga oo iyo pituitary-ga so waxaa jira marka waxa la yidhaahdo haddaan soo qaadno sawirka haddaan dhahno waa this is the hypothalamus meeshan waa hypothalamus this is the anterior pituitary gland and this is the posterior pituitary gland okay anterior and posterior pituitary gland so waxaa la yidhahdaa hypothalamuska iyo anterior pituitary gland waxay ku wada xiriiraan waxaa la yidhaahdo hypophyseal portal vessels ama hypophyseal blood vessels okay macnihiisa waxaa waaye anterior hypothalamuska iyo anterior pituitary glandiga waxay wax iskugu gudbiyaan through blood vessels okay hypothalamus markii wax laga soo diro dhiiga ayaa lagu soo dari doonaa okay anterior pituitary gland ayuu imaan doonaa marka xiriirka waxaa loo yaqaanaa marka hypophyseal blood vessels okay halka marka u imaano marka hypothalamuska iyo posterior pituitary gland waxay ku wada xiriiraan neuron okay neuron ay ku wada xiriiraan marka so
markii hypothalamus ku yimaadis waxa dhigana marka waa hypophyseal tract. Okay, tract marka waxa waaye waxaan rabaa inaad ogaatid kaliya hypophyseal blood vessels iyo hypophyseal tract. Hypophyseal blood vessels haday maqasho micnihiisu waxa waaye iyo kuwada xiriiro anterior iyo hypothalamuska. Posterior pituitary gland iyo maxaa la yiraahdaa hypothalamuska waxay kuwada xiriiraan wax la yiraahdo neuro ay kuwada xiriiraan. Hadalka micnihiisu waxa waaye posterior iyo hypothalamus, posterior pituitary gland iyo hypothalamus waxay kuwada xiriiraan neuro, halka anterior pituitary gland iyo posterior pituitary gland iyo hypothalamuska oo u dhaxeeyo wax la yiraahdo xiriir ka dhaxeeyo uu yahay hypophyseal blood vessels. Okay, hadda marka waxaan rabnaa waxaa fiirinaynaa marka inaan fiirino hypothalamuska. Okay, anterior pituitary gland ayaan rabnaa inaan fiirino marka hadda anterior pituitary gland waxaan rabnaa inaan kor istaagno anterior pituitary gland ayaan rabnaa inaan kor istaagno waxyar. Anterior pituitary gland marka ka hadlayno marka anterior pituitary gland marka ka hadlayno waxaa soo sheegnay in laga soo daayo 6 hormoon. Okay, waa soo sheegnay in laga soo daayo 6 hormoon, waa soo sheegnay waxyaabo badan, laakiin kaliya hadda waxaan rabnaa inaan ka hadalno histology of maxaa la yiraahdaa of anterior pituitary gland. Okay, histology of anterior pituitary gland ayaan rabnaa inaan ka hadalno. Waxaa jira wax la yiraahdo anterior pituitary gland, waxaa jira wax la yiraahdo chromophore cells iyo chromophile. Okay, waa inaan kala taqaanaa marka what is chromophore and what is chromophile. Okay, chromophore marka chromophore micnihiisu waxa waaye waa cells oo inactive ah. Okay, micnihiisu waxa waaye waa cells aanan qaadanin stain qaadanin ama color ma qaataan. Okay, hadina marka waa chromophore cells, laakiin chromophile waxa waaye waa cells active ah oo qaadanayo stain qaadanayo ama color qaadanayo. Okay, misleyna marka chromophore waa stain ma qaataan, waa poorly, laakiin chromophile waxa waaye stain ay qaataan color ay qaataan macnaha. Okay, so chromophile cellska waxa kala qaadanaya marka labo qaybood ay kala qaadanaa. Chromophile cellska qayb la yiraahdo acidophilic iyo qayb la yiraahdo basophilic. Okay, basophilic. So acidophilic maxaa macnihiisa? Macnihiisu waxa waaye waxay qaataan color uu yahay acidic, acid oo kale ama red color oo kale ay qaataan, kuwa la yiraahdo acidka. Basophilic waxay qaataan base macnihiisu maxaa color blue amal ay qaataan, marka kuwan waxay qaataan red oo kale ay qaataan. Marka chromophile cellska waxa kala qaadnay acidophilic cells iyo waxa kala qaadnay marka basophilic cells. Acidophilic cells waxay qaataan red color, basophilic waxay qaataan base ama red color. Okay, waxaa jira marka laba cells oo qaato basophilic qaata ayaa jira marka. Okay, laba cell waxaa jira marka qaato maxaa la yiraahdaa acidophilic. laba cell ayaa labo shay ayaa qaataan ma taqaanin. Kow waxa waaye somatotroph micnihiisu maxaa waaye, iyo waxaa jira wax la yiraahdo lactotroph. labadan maxay qaataan acidophilic ay qaataan macnaha. Okay, macnaha waxay qaataan acidophilic ay qaataan acid ay qaataan colorkooda. Somatotroph waxa waaye waa kuwa soo saaro ama sameeyo growth hormone, waxa loo yaqaanaa somatotroph, halka lactotroph loo yaqaano kuwa sameeyo prolactinka. Okay, milk productionka kuwa sameeyo waxa loo yaqaanaa lactotroph. So macnihiisu waxa waaye growth hormone iyo prolactin ayaa waxay qaataan maxaa la yiraahdaa waxay qaataan acidic, halka kale basophilicna ay qaataan waxa la yiraahdaa basophilicka waxa qaato corticotroph waxa kale oo qaato waxa la yiraahdo thyrotroph iyo gonadotroph. Okay, saddex waxa qaato gonadotroph. So
hadalkan ina ay fahantiin waa very important waxaan nahay chromophil cells ama ku qaato stainka ama maxaa la yiraahdaa colorka waxaan kala qaadnaa acidic iyo basophilic acidophilic waxaan waxay qaataan red color ama acid color basophilic kan base ay leeyihiin acidophilic ku qaataan waxaan waxa way laba ugu caansan somatotroph iyo lactotroph lactotroph waxay soo saartaa prolactinka halka somatotroph ay soo saarto growth hormonka laakiin ku qaato basophilic waxaan nahay saddex waay corticotroph thyrotroph iyo gonadotroph okay gonadotroph-ka waxay soo saaraan FSH LH thyroid D3 et waxay soo saaraan FSH LH ay soo saaraan thyroid-kan wuxuu soo saaraa thyrotroph-kan wuxuu soo saaraa TSH halka corticon uu soo saaro adrenocorticotrophic hormone okay ACTH oo ka shaqeynayo maxaa la yiraahdaa in the adrenal gland halaas waxaan umaleynaa waa fahanay okay marka hadda waxaan rabnaa inaan ka hadalno marka yaa controlo anterior pituitary gland inay hormones soo deyso yaa controlo okay waxaa jiro wax la yiraahdo hypothalamus ayaa controlsho hadda insha hypothalamus ayada ayaa controlsho anterior pituitary gland so markii la rabo in wax la soo daayo maxaa la yiraahdaa hormone la soo daayo ama la rabo in la sameeyo tusaale ahaan T3 ama T4 thyroid hormones ka la rabo in la sameeyo waxaa laga soo amraa ko hypothalamus ayaa amar soo bixi doonto amarka wuxuu imaan doonaa pituitary waxaa jira meel yar cytotroph oo samayso TSH kaas ayaa la soo saari doonaa so thyroid stimulating hormone markii la soo saaro then wuxuu imaan doonaa thyroid gland T3 T4 la sameyn doonaa so macnihiisu waxaa ka wadaa this is the hypothalamus sawirkan aan rabnaa inuu maano this is the hypothalamus ayada waxaa yaala marka nucleases okay nucleaskan waxay soo daayaan fariimahaas waxay imaan doonaan anterior pituitary gland anteriorka waxaa lagu amri doonaa in la sameeyo maxaa la yiraahdaa hormones fariimahan wixii la soo daay in la sameeyo then markii la sameeyo kadib waxaa loo shaqo geli doonaa marka jirka okay aan fiirina marka waxaa jira nucleus la yiraahdo perioptic nuclei oo ku yaala in hypothalamuska wuxuu soo dayaa wax la yiraahdo gonadotroph releasing hormone ayuu soo dayaa so ama dhinac kale aan wareegno aan hadalka maceyno waxaa soo sheegnay hadda waxaa jira wax la yiraahdo acidophilic iyo basophilic okay waxaan naanay acidophilic waxaa qaatay in anterior pituitary gland markii la hadlayo growth hormonka iyo prolactinka sax laakiin waxaa dhaanay thyroidka iyo cortico iyo gonadoga waxay qaataan basophilic marka haddaan ku hormarno marka waxaa jira cell la yiraahdo maxaa la yiraahdaa marka ventromedial nucleus okay ventromedial nucleus ayaa jira ventromedial nucleus-ka marka wuxuu soo dayaa si inta u badan growth hormone releasing hormone ayuu soo dayaa so fariin waa marka okay sidoo kale wuxuu soo dayaa somatostatin ama growth hormone inhibiting hormone okay somatostatin macnihiisu waxa waaye waxay cagsi ku tahay growth hormone releasing hormone macnihiisu waxa way xirtaa marka okay ama waxa dhihi karnaa somatostatin magac kale growth hormone inhibiting hormone ayaa dhihi karnaa so marka waxaa dhacaysa marka growth hormone ay soo deynaysaa this one growth hormone uu soo bixi doonaa intuu imaan doonaa acidic haddaa aragtid waa kala fahmi kartaa wuxuu imaan doonaa this area markuu imaado marka maxaa dhacayo waxaa la yiraahdaa inuu stimulation lagu sameeyo waxaa la amri doonaa maxaa la yiraahdaa somatotroph-ka ayaa la amri doonaa this is the somatotroph and fariintan waxaa waa growth hormone releasing hormone waxaa laga soo dayaa hypothalamus waxay imaan doontaa anterior pituitary gland and somatotroph-ka waxaa lagu amri doonaa marka inay sameyso growth hormone okay growth hormone ayay sameyn doontaa growth hormone markay sameyso kadib way soo dayi doontaa growth hormone asiga laba mid ayuu sameyn karaa ama cells-ka ayuu tagi karaa si toos ayuu cells ku shaqeyn karaa ama liver-ka ayuu tagaa inta ugu badan oo qaab kale ayuu isku bedelaa okay somatomedin wax la yiraahdo ayuu isku bedelaa ayadaa marka qabanayso shaqadii growth hormone ayadaa qabanayso somatomedin waa arki doonaa insha Allah cashir dhana growth hormone waa hadli doonaa waxaa jira wax la yiraahdo paraventricular nucleus ka marka waxay soo deysaa wax la yiraahdo thyroid releasing hormone waxay soo deysaa gonadotrophin releasing hormone okay marka thyroid releasing hormone-kan iyo gonadotrophin releasing hormone-kan ayaga maxay qaataan basophilic so ako hormono thyroid releasing hormone wuxuu imaan doonaa this area ayuu imaan doonaa this area markuu imaado marka this area maxaa waaye waa thyrotropin okay waxaa waaye thyrotroph ayuu imaan doonaa thyrotroph ayuu imaan this is the thyrotroph markuu imaado waxaa lagu amri doonaa marka thyrotroph-kan inay sameyso TSH markay sameyso TSH uu soo bixi doonaa wuxuu imaan doonaa in thyroid gland okay
thyroid gland oo kale ayuu imaan doonaa. Thyroid gland markuu imaado marka maxaa dhacaya marka waxaa la sameyn doonaa T3 iyo T4. Okay, T3 iyo T4 ayaa sameyn doonaa oo ayagana shaqadooda waxay sii noqon doontaa metabolic iyo activity of the body inay ka qayb qaataan. Okay, and growth corticotrophic hormone, cortical releasing hormone oo soo bixi doonaa. Cortical releasing hormone wuxuu imaan doonaa this area markuu imaado asina wuxuu amri doonaa in la sameeyo maxaa loo yaqaanaa this area corticotroph ayaa loo yaqaanaa. Corticotrophka waxay sameyn doontaa marka waxa loo yaqaana adrenocorticotropic releasing hormone, adrenocorticotropic hormone. Okay, ACTH oo loo yaqaan adrenocorticotropic hormone. Adrenocorticotropic hormoneka markii la soo daasina shaqo kale ayuu jirka qaban doonaa asina. Okay, qaasatan wuxuu ka shaqeeyaa adrenal glandiga meel la yiraahdo glucocorticoid ayuu badiyaa shaqadeeda. Okay, waxaa noo soo araadane waxa la yiraahdo maxaa la yiraahdaa gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone markii la soo daayo wuxuu imaan doonaa this area oo loo yaqaano gonadotropin releasing hormone waxaa loo yaqaanaa maxaa loo yaqaanaa gonadotroph ayaa loo yaqaanaa. meesha imaanaya waxaa loo yaqaanaa gonadotroph. This gonadotroph ayuu imaan doonaa wuxuu amri doonaa in la sameeyo waxa la yiraahdo LH iyo FSH oo laga soo gaabiyey luteinizing hormone iyo follicular stimulating hormone. LH iyo LFH intuu badan waxay ka shaqeeyaan inda maxaa la yiraahdaa gonadiska ay ka shaqeeyaan. Okay, in male maxay ka qayb qaadanayaan spermatogenesis, in female oogenesis ay ka qayb qaadanayaan iyo progesterone estrogen in la soo sameeyo in female. Okay, in male kan sperma ay ka qayb qaadan in la sameeyo intuu badan. Okay, iyo testosterone samaysankiisa. Okay, haddaba maana marka waxaa noo dhiman keliya arcoid nuclei wuxuu soo dayaa prolactin inhibiting factor. Okay, prolactin inhibiting factor kan marka micnihiisu waxa waaye wuxuu joojinaa prolactinka ayaa la joojinaa. Okay, ama dopamine oo loo yaqaana. So prolactin asiga shaqadiisa maxaa waaye asiga inuu sameeyo milky production. Okay, milky production waa asiga caanaha inuu sameeyo ayuu shaqadiisa. So hadda waa fahnay maxaa la yiraahdaa ciwaanka ku saabsanaa waxaan naanay in hypothalamus waxaa yaala nucleuskan waxay controlaan anterior pituitary gland. Okay, baahi markay jirto nucleuskan ayagaa fariimo soo deyi doona. waxaan naanay this waxaa loo yaqaanaa perioptic nuclei wuxuu soo deyi doonaa baahi markii loo qabo gonadotropin releasing hormone wuu soo bixi doonaa gonadotropin releasing hormone wuxuu imaan doonaa meel la yiraahdo gonadotrophka marka waxaa loo amri doonaa inay sameyso FSH iyo LH. FSH meesha ka shaqeeyaan waan sheegnay gonadiska tagayaan waxay sababinayaan in male waxay ka qayb qaadanayaan spermatogenesis, in female oogenesis iyo shaqooyin kale ay ka qayb qaadanayaan. waxaan naanay sidoo kale waxaa jira meel ventromedial nuclei waxay soo daysaa growth hormone releasing hormone somatotropin areadooda ay imaanayaan oo loo yaqaano somatotroph markuu imaado waxaa loo amri doonaa growth hormone jirka waxyaabo badan ayuu qabtaa. waxaa sheegnay TRH oo loo yaqaano thyroid stimulating hormone way soo bixi doontaa. waxay imaan doontaa meel la yiraahdo thyrotroph wuxuu soo deyi doonaa TSH waxay ka qayb qaadan doontaa marka waxay tegi doontaa fariintan TSH-ka thyroidka ay tegi doontaa fariin ay sameyn doonaa. Gonadotropin releasing hormone wuxuu imaan doonaa cortical releasing hormone wuxuu imaan doonaa anterior pituitary gland waxaa la soo deyi doonaa wuxuu imaan doonaa meel la yiraahdo corticotroph waxaa la soo deyi doonaa waxa la yiraahdo ACTH oo ka shaqeynayso adrenal gland.